رئيس الوزراء حكومة فدرالka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif u magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya. Xilkan ayaa waxaa dhawaan ka cudur daartay wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo loo magacaabay kadib markii booskaasi laga bedelay Durraan Axmed Faarax oo isna ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya. Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirkii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. waa wasiirkii afaraad ee ay yeelato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya tan iyo markii bishii Febraayo sanadkii 2017 xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye CBA مقدشو hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom.